قرآنك oo fasiran oo af Soomaali ku fasiran buugaagtoodii halka ku haya marka dad badan baa soo codsaday insha Allah taala markaad baxaysaan juz ama hore u sii qaata Sheekh Mustafa تفضل بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحين كلماتكم اسكا أرندونا سأشاء إلهي سبحانه وتعالى ليوقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين ولنسألن الذين أرسل إليهم إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحين وقلت الماما يا آخره إن ددك الله طبي دونه سؤال لويدين دونه وحي يدونك مسؤولية دي سقادين علماء المسؤولية ده وحي كنت المامان أما والتزام طوعية أما وما ألزم به كرها وحوقفك يسوي صاري ومثلا بالله مضت الشيء أما مسؤوليات كذا تقول طلبتي وضحني ما هالنقطة شقة هالنقطة معلني ما هالنقطة واحد انتهى النقطة واحد تقول عن طوع قربتين قبطه وهذا أدحل كذا يسصارتي يحل الله كصاري سبحانه وتعالى ومركه هرب لجربي مسؤولية داسي هالنقطة مت شخصية وفردية هذه قفاء هانتا دوحي لجربي أما هالنقطة مت متعددة بالشدة كذا حيسة وأمام الله وأمام الناس مثل قويدين دونه سيدا وقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين كويا لو حوت المامية قفوال إنه مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قفوال به إنه حل سارين يحي عد والبنا حل كسارين لويدين دونه حلالك سوي كلويين أو قفك إمامك آيادتك وطلين إياه حل باسارا رعية وطلين إياه لغا ويدين دونه قفك قري قرم معمولنا حل باسارنا هين قري قال لويدين دونه هوين إذا قري شوكتين لويدين دونه عرورتي ينتي مسؤول كتاهي قف والبمر كان نبي وحكوت المامي عليه الصلاة والسلام إنه مسؤولية هاي قف ولمنا انت ومسؤولك كي هين لويدين دونه مسؤولية داسي حب الله ناتو ومدعامها النقطة سيدا تام مدحوينها يو ومدغدتك لويدين يو هالنقطة مدكا كوبان ومامل كوبان هالنقطة إن أيلاك تهيبا إلهي سبحانه وتعالى مالنت قياما إنو ويدين دونه هذا نهنا الله سبحانه وتعالى وحكوت المامية أيحسب الإنسان أن يترك السدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بني آدمكم موحوا ملينا يا با إله إليه سبحانه وتعالى إن لسيدين دونا وحبعدي ويدينين موحوا ملينا ينا عبث يدل دل الله أبوري ما يويا وحصلك ومسؤولية داسي القرآن كوينوت المامة وحويان ومسؤولية كسليسا أخلاق ومسؤولية أساس كيدو هي عقلي هي حرية هي تكريمك إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كسيي هي وقدام رسوش الله صدري سبحانه وتعالى سيدا وقيد يا قرآن كريم بدن waxaad ku arkaysaa iyadoo ilaahay uu xusayo ulil albaab ama ulil nuha ama asxaabil uqul waxa soo dhami waxay tilmaamayaan mas'uuliyadu wasniga ay leedahay iyo asaaska ay ku salaysan tahay ugu dambeynna ilaahay wuxuu leeyahay
wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala daliilu lfitra abuurka uu ina abuuray qaabka laynoo abuuray ay tilmaamayso ilaahay iyo kelinimadiisa iyo cibaadadiisa kadibna caqli uu ina siiyey caqligaasina uu tilmaamayo in mas-uuliyadiina saarantahay kadibna uu xorriyadiina siiyey xorriyaddaasina ay tilmaamayso xorriyat alikhtiyaar doorashadeenna inaynu mas-uul ka nahay kadibna ilaahayna karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam takriimkaasina uu tilmaamaya in mas-uuliyadiina saarantahay intaa kadibna ilaahay uu rusul inoo soo diray rusushaasina ay inoo tilmaamayaan waxa laynaga rabo waxaa la yidhaha mas-uuliyaadka bini aadamku laba shay baa u asal ah haddii labadaa la waayo mas-uuliyaddu way ka dhacaysaa hadduuse labadaasi meesha yaalliin mas-uuliyaddaasi way saarantahy ka koowaad waa aliraada waa inuu qofku doorasho leeyay oo haddii doorashadu lunto maalan haddii lagu qasbo mas-uuliyaddu way kaa dhacaysaa haddii aanad doorashaba u lahayn shayga mas-uuliyaddu way kaa dhacaysaa laakiin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xorriyat likhtiyaar iyo inaad wax dooran karto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey mas-uuliyaddaasi waa ku saarantay ka labaadna waxay culammadu yidhahaan waa alqudra inaad awooddo haddaad istitaaca weydo wa aanad wax awoodin iyana way kaa dhacaysaa labaduba bay culammadu yidhaahdaan inta badan waxay ku salaysantay kow caqliga alle ku siiyey walidalik bay fuqahadu waxay yidhaahdaan idaa akhada allahu maa qad wahab asqata maa qad awjab haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu hibada inoo siiyey u qaato yo maalan qofkaa waashay qofkaa la qasbay qofkaa xorriyaddii laga qaaday wixii ilaahay uu ku siiyey haddii la waayo mas-uuliyaddii ku saaraydna way dhacaysaa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ilaa man ukrih wa qalbuhu mutma'inun biliimaan diikra ha dhaco inaan waxba ku saarayn waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa haddii xataa gafla ay caqligaa ku dhacdo aakhira inaan lagu qabanayn wixii khata iyo nisyaan iyo wixii la mida rabbana laa tu'aakhidna in nasiina waakhta'na kaasi waa dhanka labaadna waa inaynu awoodno shayga kale laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay subxaanahu wa tacaala takliif inama saarin waxaynu awoodno mooyaane yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj ilaahay wuxuu ina leeyahay aadanuhu bini aadamku alla abuuray isagoo daciifa idan wax kasta oo layna dul saaray maca dacfina waa waxaynu awoodno diinta waxaan la qaadi karin kuma jirto wax kasta oo sharcigu inagu waajib yeelay waa waxaynu xambaari karno mas-uuliyaadkaasi kuwa waa shakhsi oo qof kasta gaarkiisa aakhire loo weydiinaya can nafsik wa can jawaarixik wa can badanik wa can caqlik wa can ruuxik waa mas-uuliyaad gaarkaa kuu saaran ishaadu waxay aragtaa lagu weydiin dhegtaada waxaad ku maqashaa lagu weydiin gacantaada waxaad ku qaaddaa lagu weydiin wax kasta oo awooddaada soo hoos galay wixii aad ka samaysay aakhiro waa lagu weydiinayaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can cumri fiima afnaa qofka bini aadamka ah ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo ilaa iyo 4 shay la weydiiyo ama 5 shay in la weydiiyo cumrigiisii fiima afnaah war maxaad cumrigaagii ku bixisiye wakhtigii alle ku siiyey cilmigaagii maxaad ku samaysay in lagu weydiin doono xoolaha xaggaad ka kasbatay iyo xaggaad ku bixisay in lagu weydiin doono jidhkaagii maxaad
وحي أود لك سبحانه وتعالى محاتكو بحسن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلهي وحلي مقلك يا أرقة يا قلبك يا عقلك يا الدرين كاك دمانتي آخرة والقويدينية سيدا أوجد مبادئ الإسلام كو حينات المامسة قف والبا انتي وألا كسبة يا قراد يا أود يا مال يا عقل يا علم سيي إن سجل لويدينيو عدنا كل ما وداكتين طاه قف كلنا الله قبن مايو ودتك كله وحي سمينيا ناديك لويدين مايو ناديك حلك انتي كاسا رجب لويدينيا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تسوى أمتك تيبا إلهي وحي شقيستي كسب كذا لويدينيا إذن وحا شقيستين بالين ويدينيا ولا تسألون عما كانوا يعملون دتك كلا وحي سمينيا لين ويدين ماي ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ولا تزر وازرة وزر أخرى وحاسو قرآن وحين آخرين وحويان إن قفوا لبو ضريما أمام الله إنه مسؤولية دكين وحا عادة انت بدن حلال كسرك وهيا إن الرميسانين مسؤولية سارنت دكك كالنا إن حل صارين بين بدن رميسين وحجرنا معه وحجر أوحو يقف والبين حل سارية انتو أووده انتو قرات كيدا ليهي انتو أقوم تيدا ليهي انتو هنتي تيدا هايستو انت أسأل ويدير يا آخرو قفنا قفك كلي حلكي سمقاضو هدما هداد أدو حلكاك كصوب بحضو آخرة بدباديسة حلكاغاسي ومد نفتا كاسارا ومد بلشدك وحر ريسان كاسارا ومد انت الشيء تيكون دحري كاسارا ومد شارك كاسارا ومد هداد معلن تهين تادو حدك تكاسارا ومد هداد شيخ تيمي امام تهين تاد امامك وتهي كاسارا إذن وأسئلة آخرة لنا ودويدين أيوه وأبا هنا دون كينت إنو تشوغنو إنو حلكو لقانو آخرة حتى إنت إنو نيادكو حنبارنا لنا ويدين سيداو قيد با إلهي وحو القرآن كينو قلت المامية دول نيادك حماتي وحما هددك الله جعلاذي إن آخر الله قبصني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلهي وحلي كوة جعل إن حموه كفافه ددك إيمانك له كوة جعل حما هين يفافيا أدقوا فافين الميسيد لكن واحد جعشها حي بلشدوا إنه وحاس كفافان كواسبا إلهي وحيري لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بل إلهي سبحانه وتعالى أما النبي عليه الصلاة والسلام وحينو الشيقية نية السيدة الله ينوقو قبانيو إذا التقى المسلمان بسيفيهما لبا مسلمي هدي سيفتو دا اسكالور يمادان كل الدلي إياك واحد ليبا النار بيقليا مرقسال إلهي رسولك سيو قرن كم واحد ليه كل دلينا حالك سمحوية وحل يلي مدوى لبا دلك ولالك بحرسها يعني عزم قايا نيدا سوق بي سيدا وقيد مسؤولياتكم أما قلبك ها هات أما جوارح دادا ها هات أما عقلك ها هات آخر وحاصر والسويدينية
ugu horrayso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum baa ilaah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naar war dadka iimaanka laga helayow war nafihiinna cadaab ka dhowra baa ilaahay yidhi iyo ehelkiinna cadaab ka dhowra oo naftaadaad mas-uul ka tahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar waa kii ku lahaa yaa cabdallah alam ukhbar annaka tasuumu nahaara wa taquumu lleyl miyaan lay sheegin inaad habeenkiina taagantahay maalintiina soonto sidaa ha yeelin buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam soon oo afur seexo oo toos oo salaad tuko waayo jidhkaagu xaq buu kugu leeyahy ishaaduna xaq bay kugu leedahay reerkaaguna xaq buu kugu leeyahy bale walisawrika calayka xaq kuwa ku soo siyaartay iyo jaarkaaga iyo kuwaasina xaq bay kugu leeyihin taa macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyaadka ku saarani way ballaadhantay ka bilaabmaysa naftaada ku dhammaanaysa muslimka oo dhan waxa kaa saaran oo ugu yaraana inaad khayrka la jeclaato haddaad awood kale u weydo inaad u ducayso oo khayrka la jeclaatid mas-uuliyaddaasi waxay kaa saarantahay jaarkaaga intee baynu jaarkeenna ognay inay gaajo ku seexdaan iyo inay waxay cunaan haystaan iyo inay baahan yihiin iyo inay caafimaad qabaan intaynu ognay waalidkeen bay inaga saarantay awlaaddeenna inaga saarantay madaxdeenna inaga saarantay sida awgeed mas-uuliyadda qofka muslimka ahi waa mas-uuliyad aada u ballaadhan u baahanna qofka muslimka ahi inuu mas-uuliyaddaasi xambaaro taasi waa tii khalqiga inaga saarayd iyo nafteenna iyo intaynagu dhow mas-uuliyaadkayna saaran waxaa ka mida diinta inaga saarantay dadka inta badani waxay u haystaan mas-uuliyadda diinta wadaadada iyo madaxda dowladda iyo inahaasi inay saarantay ficlan kuwaa waa saarantay laakiin dadka oo dhan bay saarantay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa horta nebi maxamed inuu yahay nebigii ugu dambeeyey ama rasuulkii ugu dambeeyey ilaahay soo diro waxaana qur-aanka laynoo sheegay lilcaalamiina nadiiran inuu yahay dunida oo dhan inuu diinta gaadhsiiyo waxaanaynu ognahay jaziira alcarabiya inaanu dhaafin oo haddii caalamka oo dhan loo soo diray isla markaana aanu jaziira alcarabiya dhaafin xilku yuu saaran yihi nebi maxamed intuu istaagay buu wuxuu leeyahay alaa hal ballaqt war hooyaay kiina joogaa kiina maqan ha gaadhsiiyo ilaahay ou markhaataada iga tahay inaan gaadhsiiyey waxaan uga dan leenahay waa mas-uuliyad dadka oo dhan saaran oo markay dadku xilkaa gabeen ayay diintuna dayacantay aakhirana waa lagu weydiinayaa qof kastoo inaga mid ah qur-aanka ilaahay qisas buu inooga warramayaa dad mas-uuliyaddaa xambaaray waan rusul ahayn iyo qaar rusulaba masalan qur-aanka ilaahay waxaa inooga warramayaa meel 3 rasuul la diiday nin xil isa saaray oo le waa rususha ha la raaco mu'minu aali yaasiin waxaa ilaahay qur-aanka inooga warramayaa meel 2 nebi lagu diiday oo bale la rabo in iyaga laga hor yimaado nin ka hor yimid oo isagu keligii u qumay mu'minu aali fircawn waa qisasaa ku taqaanin qur-aanku aada u ballaadhan waxaa ilaahay qur-aanka inooga warramayaa nebi maxbuusa oo iyadoo la xidhay xilkaasi ah inuu diintii weli faafiyo oo xabsi gudihii uu ku faafinayo 3 qisaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogaga warramaya waxa ay tilmaamaysaa xilka kan siday u qaadeen ama u xambaareen marka waxaan leenahay xil diinta inaga saarantay
ومجتمع أردن بيسارنت وضدك أردن باحلك إلهي آخرة ويدينية نوال با على قدر علمي واستطاعتي وحلقية باحلكاس إنه وداد وعديو مركا قار كودبا كلمة دي سكفي عن طهي نين سلطانا أما نين مدحي أري ويلاهضو